deegaanka Qalaanqale ee hoostaga degmada Xeraale ayaa maalmahan dambe waxaa ka jiray xiisad colaad abuur ah kadib markay dadka deegaanku damceen inay ceelbiyood hirgeliyaan. intaasi kadib waxaa ku dhawaad 15 bari lagu kala dhex jiray xalinta xiisad colaadeed ee ka jirta deegaanka Qalaanqale waxaana howlwadeen ka ah mas'uuliyiinta xal ka raadiyay beelaha isku haysta deegaanka Qalaanqale ee ka soo kala jeeda Xeraale iyo Dhuusamareeb. wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Galgaduud Axmed Dheere intaasi kadib waxaa maanta lagu qabtay deegaanka Qalaanqale shir looga arrinsanayay nabadda iyo isdhexgalka bulshada kaasi ay soo qaban qaabiyeen beelaha walaalaha ee deegaanka Xeraale iyo Dhuusamareeb. waxaana shirkaas ka soo qayb galay si shirka ay korjoogto uga noqdaan xildhibaan federaal Cabdixakiin Macalin Axmed gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Cabdullaahi Xirsi Maxamed wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Xasan Cali Axmed Dheere wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud Axmed Nuur Xasan Xaydare wasiirka diinta iyo qaafta dowlad goboleedka Galmudug Xasan Cabdulqaadir gudoomiye hore ee maamulka gobolka Galgaduud ee dowladda Soomaaliya Xuseen Cali Weheliye Cirfo ciidamada booliska iyo odayaasha dhaqanka labada beelood ugu dambeyn labada dhinac ee shir ka soo wada qayb galay ayaa wada qaatay nabad loo dhan yahay iyagoo ku heshiiyay in motorka si nabad iyo xasilooni ah deegaanka looga hirgeliyo waxaana ugu horeyn hadal ka furay nabadoon Salaad Cali Cawaale labada beelood oo beesha direed iyo beesha Cayr awalna dad darisay ahaayeen oo ehla oo si wax walba ka dhaxeeyaan hoogaa tuhun yar baa kala galay tuhunkiina waa la isaga yimid waa laga walaaloobay waa laga heshiiyey haddana waxay ku ballameen si walaaltinimo iyo ehelnimo ah oo isla noolaanshaha inay ku noolaadaan kuna walaaloobaan sidaasay go'aansadeen goobjoog badan waxaa ka ah wasiirada arrimaha gudaha afhayeenka baarlamaanka ku-xigeenkiisa xildhibaanada intaasaa goobjoog ka ah iyo dhaqanka dhammaantiis labada beelood iyo culmaa udiin badan baa goobjoog ka ah saasay ku heshiiyeen kuna ballameen warkoodiina ay ku dhammaysteen. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. qabaa'ilada reer direed iyo reer Cayrna iskugu yimaadeen wixii la iskugu yimid waa laga heshiiyey waa aan heshiinay raalli baan isu noqonnay gacnahaan isqabsannay dhexdayada wixii ku laaban annaga ay noo yaaliin waxbana kuma laabno heshiis baa noo dhammaaday intaasaan ama muslimka oo dhan u sheegaynaa ama deriska u sheegaynaa ama dadweynaha Soomaaliyeed u sheegaynaa. munaasabadan runtii de maalmahan soo marnay oo la isku soo jiijiidayay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu noo suurtageliyay ugu dambeyntii inaan heerkan soo gaarnay aan maanta aan joogno waan ku faraxsanahay runtii dadkaan oo aan xumaato hore iyo dhibaato hore ka wada dhaxaynin ceelkaas isqabadkii ka yimid iyo dhismihiisii iyo qodistiisii in maanta si fiican oo wanaagsan lagu soo gabagabeeyay lagu heshiiyey insha Allah ceelku waa horumar waa development iyo maaragtay dadka tanmiyada iyo horukac ka qayb qaata oo qayb ka yahay ceelal badan loo baahan yahay hal ceel kaliya looma baahna wadanka oo dhan waraab iyo ceel u baahan iyo biyo marka insha Allah biyihii lagu liibaano Ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr ka dhigo ilaahayna dadkan qulubtooda haysu mariyo burcad insha Allah say ku socoto iyo sida galabta isfahamka halkan ka muuqdana aadan u soo dhaweynayna waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wuxuu ku dhamaaday heshiis ay ku heshiiyeen labada beelood oo magacooda halkan laga sheegay oo dir iyo Cayr la yiri khaasatan reer Fuq Maxamuud iyo reer Yabar Dhowrkaco halkan deriska ah markii horena ahaayeen wixii deegaankan deriska waxna isku qabtay waxaan marqaati ka nahay galabta inay halkaas heshiis buuxa ku gaareen waxyaabo badan oo tabasha oo ay dhexdooda isku sheegeenna ay ka heshiiyeen wixii kale oo khilaaf oo jirana ee iyagu xallisan doonaan sida gudoomiyuhu u sheegana waxaan ayideynaa oo la ayideynaa soo jeedinta gudoomiyaha guddi labada dhinaca oo dhowr xubnooda inay qabsadaan annaguna aan la shaqeyno waxaan kala rabaa inaan beesha halkan degan odayaasheedu aanu dardaaran aan wakiil uga nahay dowlad goboleedka Galmudug aanu gudbino dardaarankaas wuxuu yahay deris baa la yahay markay hadlayaan waxay sheegteen inay muddo deris ahaayeen wax walba yihiin dhareer wadaag ahaayeen haddana aad moodo isriixriix inuu ka jiro waxaan kula dardaarmaynaa deegaankan waa ku filan yahay waa deegaan ballaaran isriixriix haddana kuma jirto in iska daayaan dowladduna ma danaynayso khilaaf soo laalaabta oo deegaanada ka soo laalaabta marka wixii dambe oo yimaadana dawladda baa arkaysa in aan maanta ka gaarnay guul arrinkii taagnaa ee ceelka arrinkiisa ahaa ee u dhaxeeyay labada beelood oo dir iyo Cayr
oo muddo sanada jiitamayay in maanta laga gaaray guul ceelkiina la fasaxay ceelkiina biyihiisa la cabi doono insha Allah ma haddaasna waxaa iskale ilaahay khayr ha siiyey odayaasha dhaqanka ee labada beelood ee arrinkan muddo dheer ku soo jiray waxaan halkan uga mahadcelinayaa maamulka Galmudug gaar ahaan madaxweynaha Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo hore ceelkan u fasaxay hadeertaana ceelkii wuxuu diyaar u yahay in la bilaabo waxaan halkan uga mahadcelinayaa raggii ka soo shaqeeyay oo ka mid yahay gudoomiye Cirfo Cabdixakiin gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee Galmudug generaalka wasiirada ciidamada ila socda ee maalmahan iskaga soo dabalaabanayay aad iyo aad ayaa u mahadsantiin ilaahayna waxaan ka baryaynaa ceelkii waa loo duceeyay galabta ducadiisana waa lagu liibaani doonaa waxaan kula dardaarmayaa ceelkaas inay labada dhinac labada beelood ummadda islaamka cid walba inay ka faa'iideysato ceelkii waa loo duceeyay insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo waxaan ilaahay uga baryaynaa ceel lagu barwaaqoobo ummadda dhan barwaaqo u ah inuu ilaahay ka dhigo munaasabad ay meesha uga baxday tashwiishkii labada reerood oo walaalaha soo kala dhexgalay waxaan aad ugu mahadcelinaynaa guddigii hawshan waqtiga dheer ka soo shaqeeyay annaga laftigana waa ku faraxsanahay inaan goobjoog ka ahaano walaalowgan iyo heshiiskan sida ragga horena sheegeen ceelku waa horumar waxaan ku dardaarmaynaa wax kasta oo horumar ama wax kasta oo deegaanka laga qabanayo in sidaan oo kale looga walaaloobo oo aysan dhib hor la iyo colaad keenin ilaahayna waxaan ugu mahadcelinaynaa dadkan inay sida maanta ay walaaloobeen walaalnimadoodii u sii jirto aadna waad u mahadsantihiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudoomiyihii hore iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka hawshii xoog lahayd oo labadii asbuuc oo la soo dhaaftay ay meeshan ka qabteen waad mahadsantihiin ugu dambeyn waxa hadalka soo xiray nabadoon Xuseen Cali Weeli iyo Cirfo dadkaani waa dad walaala waa dad derisa waa dad weligood wada noolaa waa dad weligood wada noolaan doona ilaa inta qiyaamuhu dhacayo ceel iyo baraag iyo si kale oo la isugu qabsadahay dad ku kala tegaya maahan waxaan soo jeedinayaa in walaaltinimada iyo derisnimada la ilaaliyo culimmadeennana ay qaybta ugu weyn ka qaataan odayaasha dhaqanku annagana ka mas-uuliyad ahaan waan kala shaqaynaynaa waanan ku garab istaagaynaa haddii rabbi idmo isdhexgal midaan hadda ka badan galabta ay taagan tahana waan ka shaqay doonaa dadka deegaankan inay isdhexgalaan oo walaaltoomaan oo soo ceshadaan waxoodii hore intaas waa middaas waxaan soo jeedin lahay oo walaalaha u soo jeedin lahaa in halkan galabta laga qabto laba guddi oo arrimahan ka shaqeeya walaaltinimada iyo derisnimada iyo sida loo wada noolaanayo oo ama 7 laga dhigo ama 5 laga dhigo oo dadka deegaanka wada degan ah oo arrimahaas isku ogaada oo iswaca oo meel isugu taga oo mar walba is abreed gareeya waxa ku soo siyaa deegaankana waan soo jeedinayaa